الله والله 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 الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kusoo dhawaada abna official. insha allah muuqaalkan waxaan ku baran doonaa sidaad u furan lahayd masna aad u samaysan lahayd dukaan ice cream iyo waxyaabaha lagaga baahan yahay. Aynu ku bilaabno xaqiiqooyin fudud. Jalaatada waa macaan tahay, qof kasta wuu jecel yahay jalaatada. Lahaanshaha dukaan jalaato ayaa noqon doona wax ugu fiican abid. Haddii aad dhawaan is aragtay adoo dhex taagan meherada ice cream lagu iibiyo ee xaafadaada, adigana aad leedahay fikrad ah inaad furato dukaan ice cream, kadibna aad tahdo waa inaan furaa dukaan jalaatada iyo ice creamka lagu iibiyo, kadibna maskaxdaada ay ku soo dhacdo sidee loo furaa dukaan jalaato. Furitaanka dukaan jalaata iyo ice cream waa riwaayad macaan, laakiin ma ahan mid fudud. Waa maxay sababta socodsiinta ganacsiga jalaatada ama ice creamka ee kugu habboonaan karto adiga? Jalaatada iyo ice creamka waa badeecad caan ah. Haddii aad raadinayso inaad bilowdo ganacsi jalaato, waxaa jira dhowr wadiiqo oo kala duwan oo aad qaadi karto, sida inaad samayso ice creamkii kadibna aad u dhiibto qof gaari ku wareejiya xeebaha, goobaha xeebta iyo dadka ay kusoo damaashaadaan, ama inaad furato dukaan gaar ah oo aad ka furato meelaha bulshada u badan yihiin sida laamiyada waaweyn, iskuulada hortood, jaamacadaha, maqaayadaha waaweyn, hoteelada. Lahaanshaha qorshe ganacsi oo adag waa lagama maarmaan, maadaama ganacsiyada jalaatada ay saameyn weyn ku yeelan karaan baahida xilliyeed. Maxaad u bilaabaysaa ganacsiga jalaatada? Jalaatada iyo ice creamka waa badeecad aad loo iibsan karo, gaar ahaan bilaha xagaaga. Qarashka bilowga uma badna sida ganacsiyada kale qaarkood, sidaas awgeedna waxaa laga yaabaa inuu soo jiito ganacsatada marka ugu horeysay ama kuwa aan dooneynin inay khatar geliyaan raasamaal fara badan. Ganacsiyada jalaatada iyo ice creamka sidoo kale waa kuwa aad loo qiyaasi karo. Waxaad ku fidin kartaa gawaarida oo aad ku iibgeyn kartaa ama goobo haddii aad adigu guulaysato. Haddii aad raadinayso inaad bilowdo wadadaada ganacsi oo aadan hubin shirkadda aad bilaabaysid, tixgeli meherada ice creamka. Waa meel ama goob aad ka samayn karto faa'iido fara badan. Haddii aad heli karto goobta saxda ah oo aad ku lamaanaynayso qorshe ganacsi oo adag, waxaad heli doontaa dhadhaw weyn oo ah socodsiinta ganacsiga. Waxaana rajeynayaa inaad ku raaxaysan doonto faa'iido sidoo kale. Sidee loo furaa dukaan jalaatada iyo ice creamka lagu iibiyo? Dukaanka jalaatada iyo ice creamka wuxuu la mid yahay dukaanka kabaha, maqaayadda Talyaaniga ee aad u malaynayso inay tahay goob casri ah. Wax walibana waa ganacsi. Ka jawaab su'aalahan inta aadan bilaabin dukaanka jalaatada iyo ice creamka. Sidee ugu dhigi doontaa jalaatadaada mid gaar ah? Waa maxay noocyada qalabka dukaanka jalaatada aad u baahan doontid? Sidee ku heli karaa xirfadlayaal ice creamka si casri ah u samayn kara? Sidee ula socotaa lacagta soo gasha iyo lacagta kaa bixisa? Waa maxay barta iibka ah ee barnaamijka aad isticmaali doontid? Waa halkee goobta ugu fiican ee aad ka furi doontid dukaankaaga ice creamka? Liiska su'aalahan jawaabahay u baahan yihiin waa dheeraan kartaa, laakiin yaanay kaa hor istaagin riyadaada. Waxaa jira waxyaabo badan oo laga fikirayo marka la furayo meherad jalaato, waxaana caddeyn u ah liiska kor ku xusan ee su'aalaha. Way fududahay in laga adkaado, gaar ahaan bilowga. Habka ugu fiican ee lagu hubiyo inaadan luminin waddadaadu waa inaad qorsheyso sidaad ugu socon lahayd. Marka ku bilow qorshe ganacsi ka hor wax kasta. Qof ka mid ah kooxdaada ayaa bilaabay ganacsi u gaar ah, mid aad u qiimo badan. Waxa kale oo aad ka faa'iidaysan kartaa caawimaadda xisaabiye khibrad leh, gaar ahaan mid khibrad u leh la tacaalida meherada gaar ah sida qolka ice creamka, oona kaa xalin kara caqabad walba oo adiga kusoo wajahda maaliyad ahaan. Marka xigta, ka fikir sidaad uga dhigi karto ice creamka mid gaar ah, yacni siday macaamiishaada ugu dhigi kartaa ice creamkaada inay mar waliba soo doontaan. Raadi sida aqoonyahan ice cream. Waxaad ogtahay inay jiraan waxyaabo badan
oo macmacaanka ka badan, sida dhadhanka ama duubista muuqaalada iyo sawir qaadida ice creamka. Maadooyinka iyo habka aad u isticmaasho samaynta ice creamka ayaa aad ah mid muhiim u ah socoshada dukaankaada. Haddii aadan hubin sida aad ugala socoto suuqa ice creamka, kadib fiiri dhammaan meheradaha jalaatada ee deegaankaaga. Dhadhami ee tijaabi alaabtooda oo arag sida ay isu barbardhigaan tayada aaladaha ay soo saaraan. Fiiri oona soo eeg aaladaha iyo waxyaabaha ay ku sameynayaan ice creamka. Ma jira qaab jalaato ama qaab lagu sameeyo ganacsigaaga oo ka dhex muuqda kuwa kale. Sidoo kale waa caqli in la fiiriyo waxyaabaha ka baxsan ice creamka sida ay jecel yihiin, sida inay isticmaalaan waxyaabaha lagu qurxiyo ice creamka, sida dukaankooda ay u dhisi lahaayeen nuuca suuqgeynta ay isticmaalaan iyo waxyaabaha la midka ah. Number 2, raadi goob. Markaad dejiso qorshe oo aad ka hesho meel ku dhex taal meherada ice creamka, tallaabadaada xigta waxay tahay inaad hesho goob. Goobta aad dooratay waxaa badanaa go'aamin doona meelaha tafaariikhda ah ee laga heli karo aaggaaga. Laakiin sidoo kale nooca ganacsiga jalaatada aad qorsheynayso inaad ku shaqeyso, waxaad u baahan tahay inaad hubiso in goobtaada mustaqbalka ee dukaanku ay leedahay boos iyo adeegyo aad ugu baahan tahay inay lahaato mar waliba. Meelaha bulshada ay u badan yihiin sida carruurta iyo dhalinta, ka furo dukaankaada ice creamka sida xeebta, iskuulada, jaamacadaha, laamiyada waaweyn. Sidoo kale si online ah u iibi. Number 3, qalabka. Marka aad heshid goob sugan, hadda waxaad u baahan tahay qalabka dukaanka ice creamka ee saxda ah. Qalabka ugu horeeya ee maskaxdaada ku soo dhacaya waa qalabka jikada ee kuu oggolaanaya inaad ka dhigto jalaatadaada ice creamkaada iyo qaboojiyaasha aad ku keydin lahayd waxyaabaha aad sameyso, iyo waxyaabaha lagu sameeyo ice creamka aad ku ilaalin lahayd. Sidoo kale waa inaad ka fikirtaa alaabta guriga iyo qurxinta meheradaada ice creamka. 4, bartanka iibka. Qaybta kale ee lagama maarmaanka u ah qalabka aad u baahan tahay waa barta iibka ee dukaamada yaryar ee jalaatada ganacsiga. Qalabkan qiimaha leh wuxuu kuu oggolaanayaa inaad aqbasho lacagaha loogu talagalay jalaatadaada iyo sidoo kale faa'iidooyinka kale ee muhiim u ah ganacsigaaga cusub. Tallaabooyinka ugu dambeeya ee lagu furayo meheradaada jalaatada ayaa ah qaybaha aad sugaysay, sida samaynta mayonnaise oo aad ku buuxinaysid dhadhanka jalaatadaada, samaynta olole suuq geyn, ku xirnaanshaha ganacsiyada deriska ah iyo in ka badan. Dhammaadka safarkan waxaad isku arki doontaa adiga oo taagan qol jalaato ah, kadibna ay macaamiishaada kaa soo dalbanayaan oo ay kaa soo buuxinayaan si ay u iibsadaan jalaatadaada iyo ice creamkaada, kadibna aad adiguna dhoola caddeynaysid. Imise ayay kugu kicaysaa inaad furato ganacsi ice cream ama dukaan ice cream lagu iibiyo? Waayo waa su'aal muhiim ah. Imise waxaa imaanayso markay imaado tiro. Furitaanka ganacsi waa qaali. Furitaanka qolka ice creamka waa qaali. Kaliya ma ahan inaad bixiso qarashka kirada, iibsashada ama dhismaha dukaan waa qaali mar waliba. Taasi waa tan ugu yar ee muuqata. Marka xigta waa inaad ka fikirtaa qiimayaasha maadooyinka lagu sameeyo jalaatada iyo ice creamka, adoo siinaya shaqaalaha si ay u sheegaan waxyaabaha loo baahan yahay, fursad ay ku sheegaan waxyaabaha loo baahan yahay, utility-da iyo si ay u ilaaliyaan leerarka iyo qaboojiyaasha iyo qarashyada kale ee dayactirka. Waxaa jira doorsamayaal badan oo kala duwan oo si weyn u sameeya inta ay la eg tahay
qarashka ku baxa bilaabista meherada ice cream. Marka jawaabtu waxay ku xiran tahay ganacsigaaga gaarka ah iyo baahidiisa. Waa muhiim inaad la socoto qarash kasta oo ganacsigaagu dalbado, maadaama tani ay kaa caawinayso inaad la socoto in aad ku maalgelinayso ganacsigaaga qolka jalaatada. Kadib waxaad go'aaminaysaa sida loo dejiyo qiimahaaga, halka faa'iidadu tahay socodka lacagta iyo caafimaadka guud ee dukaankaada ice creamka. Sameyso aaladaha lagu isticmaalo baraha bulshada sida Facebook, Instagram, TikTok, kadibna ku soo bandhig jalaatadaada ice creamkaada. Welibana ka soo qaad sawir qurxoon, adigoo kadibna u sameynaya customer-kaada location u tilmaamaya location-kaad adigu degan tahay ama aad u sameynaysid free delivery. mahadsanid insha Allah. Waxaan rajeynayaa inaad wax badan ka faa'iiday. soo dhawaada mar kale insha Allah. fadlan haddii uu muuqaalka ku cajabiyey subscribe saar insha Allah si ku soo gaaraan muuqaaladan kale.